ولعي أنا معناها رفنايو استمنهية أي قرحنا العالي وقالكي إجمتين لكن وحركتي ماين saacadu markay ahayd 12 galabnimo ama 5 galabnimo iyo qadar 40 ama 35 daqiiqo oo kala ah ayuu weerarku dhacay markii idaacadda codkeedu kor u kacay al-shabaab waxay ogaadeen inaan ka tirsanahay wasaaradda warfaafinta waliba qaybta radio Muqdisho waxay ii maleeyeen qorshe ah in la idilo marka xaafadda tago xabad ugu horeysay ee ugu dhigteen marka xabadaas waxay ula jeedeen adii wadnaha jara dhinaca wadnaha la aadeen marka ilaa amarkiisu way ugu dhacday waan iga baxday dhulka ku dhacay marka aniga qalabkii awatay oo microphone-kii record-kii wixii oo dhan أفرتي أبريل أيام وحان إمد بإذاعة وحان إمد ماشان وسارد ورفافنت أنا أملينا مركا إن لو قوانا مناسبة هل يويري waxay ka dhacaysaa tiyaatarka waan tagay safka ugu sokeeyay ayaan ka fariistay marka xoogaa joogno dad kala duwan oo qaybaha bulshada ah isboortiga hadii aan lahayd dhalinyarada hadii aan lahayd haweenka dawladda dadka socod dad iska caadi oo dadweyne la casuumo kale dad kala duwan ku sugnaa fanaaniinna way joogeen heesaha halkaas ka socday hees u qaadayo سعيد داود مصحف هاس ودني وقاضي أيان تجي لنعك لنا وحكتمت نشات هاس كيبان حوضاء هاس أبوانكي هاس إنك فنانكي لها سني وكسوت تجي مركا فنان حصوص سلامي ورجال وفريق ماشى هل كان صوفر يسيب حبالي يجي مكان عاري meel xaggaan fadhiyaa xaafadii ayaan tagay xaafadii markaan tagay buuq ayaa la sameeyay banaanka u soo baxay waxyaabo noocaas oo kale albaabka ayaa la soo garaacay in qorshaha ilaahay markiis waa fahmay albaab labaad ayuu lahaa guriga albaabkii labaad ayaan ka baxay qorshahoodii iyo dhagartoodii maalintaas sidaas ayaan uga badbaaday waxaa iga soo horbaxay laba nin oo ka tirsan shabaab waxay isku dayeen inay iqaarajiyaan ha yeeshee ma aysan dhicin ilaahay xaggiisa ayaan ka noolahay waxayna igu dhufteen 7 xabadood markiiba waxaa meesha ku sugnaa ciidamo booliis ah oo aan goobta aan ka fogeen markaan ka baxsaday oo aan ciidamadii booliiska ku dhawaaday ciidamadii booliiska ayaa iga fujiyay oo rasaas ku furay kadib madaxdii timid barnaamijkii bilowday khudbadihii markii la gaaray oo kale ayaa anagu u baahanay inaan codad duubano dhinaca sameecadda oo afka hore aan tagnay khudbadaasay u socotay xilligaas waxaa hadlaya ra'iisul wasaaraha ka baran waa maarmaan laakiin runtii waxaan isleeyahay hal sano gudaheed ayaa waxaa isoo gashay holac holacii anoo macnaha la rafanayo istiminhaya ayaa qaruxna dhacay joog marka meeshii oo dhan waxay noqotay meel boor mugdi waa la is arki waayo wax aragti mahayn oo aragtidu waa
waxay iga ahayd wax mugdi qol mugdi ku jiro kale waxaan arkay male kahor intaan weerar ku dhicin anigu idaacadda waxaan ku qornaa warka saacadda ee 5 galabnimo warkii saacadda markuu ii soo dhamaaday sida caadiga ahaydba waxaan u soo degay hoos oo saaxiibaday aan u imid inaan la qaxweeyo annagoo sida u sheekaysanayno ayaa maqaayadda banaankeeda waxaa ka soo dhacay xabad marka xabaddii wada eegnay wuxuu noqday nin qori wata oo mataqaanaa xabad wuxuu ku riday wiil caseeya oo meesha fadhiyay waxay ii beegsanayaan waxay ahayd waxaan ahay saxafiyad saxafiyiintuna waa ogtahay isku ma jiraan qaar dadka wadada saxan ku toosiya sida wasaaradda warfaafinta saxafiyada ka shaqeeyo kale anigana markaas waxaan joogay radio Muqdisho ay ka nacab yihiin malakamoodka qof walba oo Soomaaliya wuxuu ugu xukuman yahay dil qof walba oo horumarka Soomaaliya gacan ka geysanaya dil uu ugu xukuman yahay intaa kadib markay dhacday sawaxan kan maqlayaa dadku waa dhawaaqooda waa maqlayaa adigu wax oo markaas ii imaanayo caawinaya ma jiraan haddana waxaan isleeyahay aad kacdido 3 jeer baan waxaan tirigeliyay inaan istaago marka waan istaagi waayay oo lug walbaaba meesha ka jaban tahay ayaan dhigtay kadibna waan dhacay waxaan arkay gacantii oo xoogaa meelahan qoyan saas u dhahay markii dambe dhiiga arkay gacantii ka arkay dhiiga marka arkay asaas daadhay waa ilaa dhiig badan oo shaatiga dhan qoy maba ka waraayo marka gabdhaha fanaaniinta gabar ka mid ah ay soo carartay garbisaarkeeda iga xirtay sidii waxaa ku noqday dadkii dad gureynay isbitaalka loo qaaday ilaa isbitaal Madiina Boston meesha sukoorsada markii la geeyay waxaa dhacday markii iga jajexeen aduu meel waaska ay gashay markaas waxaa iga tagay xusuustii baa iga tagtay inka bacdi waa soo noqotay maskaxdayda waxaan dareemayay in meel kelida ah oo maqas oo saa ugu qabanayo orodkii marka aniga aan orday baan waxaan ka hortagayba nin kale oo sii diyaarsanaa oo gudaha maqaayadda fadhiyay marka annagoo kii bannaanka ka cararaynaya gudihii qarax ka dhacay runtii qaraxaas oo dad badan galaaftay qaraxaas dadka uu dilay ee aan garanaya waxaa ka mid ahaa allah u naxariistee agaasimahaygii hore cabdiraxmaan yaasiin idaacadda VOD sidoo kale dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa cabsitaar daahir sabriyo oo ka tirsanaa TV-ga qaranka runtii cabsitaarna maalinkaa waa xasuustaa waa u soomanaa maqaayaddana wuxuu u yimid inuu ka qaato afur uu ku afuro waxay go'aansadeen inay iska ka horwareejiyaan ayagoo dantooda fiirinaya dhowr mar ayay isoo ataageen anigoo suuqa jooga mar wata kuushay guriga jooga fariimaha ay soo dirayaan xad ma aysan lahayn anigana taas markaa dhig uma dhigaynin waxaa iga go'oneed inaan u shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed si aan dalkayga wax ugu qabto mar alla markaas soo baxay oo soo degtay oo albaabka aan imid moota aan watay meesha ii taallay horta waxaa anaga tilmaannood cabsidii anaga badatay wariyaal badanaa la dilay dad badan marka waxaa shaqo ka dhigan markaa guriga ama goobta shaqada aan ka soo baxno dhinacyadaa fiirnaa dhinacaanaa fiiriyey way bannaaneed qofna ma joogin dhinacii kale u jeesta haddana garabka kale haddana waa fiiriyey 2 wiil marka guriga meesha taaganay guriga ku dhagan taagan ayagoo iska dhigay sida qof guriga garaacayo kale marka waxaa dhahay waa dhalinyaradan gurigaan ay ka tirsan yihiin xataa xoogaana mugdi inay dhalinyaro yihiin inay duqiin markaas ma ogeen mootadii iska aaday waa kiciyey kicintii aan kicinaya waxaan maqlay qajajaja baakaday qof dardaraya waa ku jeestay yaa waay markaa dhahayna xabad ugu horreysay ee ugu dhufteen marka xabaddaas waxay ula jeedeen adii wadnaha jara dhinaca wadnahay la aadeen marka ilaa amarkiis way ugu dhacday waan iga baxday dhulka ku dhacay marka aniga qalabkii awatay oo microphone-kii record-kii wixii oo dhan iyo kaameradii sawiradii wixii oo dhan marka alla markaa dhacay kora u fiiriyey kor markaa u fiiriyey
waxa ay kor taagan 2 nin oo bistooladii la ororday oo rabo inay dhammaystiraan kulley anigu nimankii i weeraray niman aan aqaana ma ahayn laakiin meeshaas waxaan tegi jiray maalin walba oo jimco ahayd aan meeshaas tegi jiray marka waxaan is oran karaa maalintaas jimcaha ay isugayeen marka dad badan ayaa qaraxaasi koowaad ku geeriyooday ani marka waa ku dhaawacmay oo lugta midig ayaa waxaa iga gaaray dhaawac oo lugta waa jabtay marka anoo weli miirkayga taamiya ayaan meesha seexday anoo sida usii jiifa oo ka fikiraya ninkii koowaad ee xabadda inagu soo riday iyo maxaa xigi doona iyo haddana qaraxii labaad dhacay ninkii annaga xabadda nagu soo riday waa cararay wuxuu galay annaga waxaan fadhinay meel beer ahaan fadhinay isaga wuxuu galay meel hool oo gudaha ah markaasuu dadku isugu yeeray isagoo dhahaya waa hoobiya laga soo xaroodo dadkii sidii gudaha ugu xaroodeen qaarkood qaarkii carari karna magaaladooda isaga carareen waxaa albaabkayga soo istaagay ciidankii wasaaradda iyo ciidan kale oo wada socda saas ayaa lagu soo bixiyey maalintii 2009 gurigayga laga soo bixiyey ilaa iyo 2015 waxaan ku noolaa wasaaradda warfaafinta qayb ka mida oo ay degaan dadka shaqaalaha ee xaaladahaas oo kale la kulmo kii la socdaa soo wareegtay marka asagoo damacsan inuu halkan igaga dhifto asagoo damacsan ilaa amarkiis baashii ka katibtay qash ee dhacday marka oo la rafanaa wuxuu rabaa inuu ka tuuro oo markaas sababtoo kan iguma dhufan karo anaa la haysto asagana way ka halawday wuxuu rabaa inuu baashi ka tuuro oo markaas raacsiyo oo igu dhufto rabaa way ka katibtay markaa wahayay iska tuuray dhiiggina wuu iga socda markaas shaatigii jaakadii awatay oo aad ay u qoyaan marka kaa haya iska tuuray kanna asagayba ka halawday intuu la rafanaya ka carray laamiga isgoyska markaa u dhawaaday ciidamo booliis iga hor yimideen istaag markaasaa dha war anigaaba dhaawaca soo ma jeedin dhiigga aw raggi waa kuwaas luuq ku jiro sidii isbitaal madiine liigu geeyey isbitaal madiine markaa tagay saaladaa lii geeyey qaliinaa galay qaliinkii intaa ku jiroo dhan wixii magaalada saxaafiyiin joogay iyo dadkii saxaafadda jeclaa oo la shaqayn jiray iyo madaxyada idaacadahoo dhan iyo tviyada ayaa soo dhoobay meesha intaa kadib waa la dhadhihi jiray waana la qaadi jiray waa la adigu in la isuuxiyo in markii la dhayayo oo la isuuxiyo qadka laga saaro ayaa imaan jirtay aakhirkii dambeeto waxaan xasuustaa galab galbaha ka mida iyo 2 iyo 3 jeer waxayd maaqaan in qays ugu soo laalaabanay horta cabsidaas waa jiraysaa weliga kaligiisna maaha ummadoo dhan baa mataqaanaa waxay ka baqaysaa in aafada shabaabku ay waxyeelo ka soo gaarto haddii lagu dhex arko ayagoo ku dhex jira mishinka dowladda laakiin weliyaasha waxaan dhihi karaa waa ragga keliya u bareeray ee laamiga soo istaagay ee mataqaanaa aan khatartaas boqolkiiba xad aan ka baqaynin inkastoo baqayaan laakiin haddana u bareeray ee laamiga hortaagan marka waxaan isleeyahay baqdin shabaab laga qabo in aan ama aniga ama asxaabta kaleba aanay shaqada u joojinin laga saaro baqdinta ay shacabka gashteen bulshada Soomaaliyeed heer waxay gaareen qof walba qof wax u sheego ugu waayo anagana dadkii waxaan ka saarnay cabsidii iyo baqdintii shabaab ugu jirtay sababta keentay inayna ugaarsadaan taas ayaa dhalisay shabaabku waxa weeye beerahana ma ogola baddana ma ogola
meel ay ogol yihiin male weriye iyo nin madaxa iyo nin kastaba way dilayaan meeshaan waxaa rabaa dadkan isku tareen baa u wada saaran yihiin ayaga xaggooda magac kastaa loo bixiyo adiga waxa weeye inaad dadka walaalaha waddanka dhibaatadiisa inaad soo bandhigto ma ogola alla dilaa dhinto laakiin shabaab inuu ku soo waco misad kuu soo qoro waa ku dila hadduu ku dhaco asaga kuma abuurin kumana dili karo ilaaha wax dilo ilaaha noolay taasaa aaminsanahay shaqadeedana waa si gudan hadduu alla idmo laakiin si gaara saxaafaddu waxaan aaminsanahay inay yihiin isha keliya ee ama dal dhistaa ama dal burburisaa marka saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan u soo jeedinayaa in ay isha sandalkooda ku eegaan oo ay dalkooda dhisaan fadlan shargaray hadda shargaraysaan birita 10 fi amadi yeelisaan hadda shargaray hadii kale nagala taga wax anaga inoo sheegay hadii laga hadda shargaray kulligii shargaray hadda dilay fidmay shargaray kulligii all of you now kullu fa badan arafkayga aan xiranayaan wala dilay fid waxaan isbees soo dhooban ilaa waa been إلا صاحب بنقولنا هي بن ورا شرقرة يلا شرقرة